kula wanaagsan daawadayaal dhamaantiin waxaan idin leenahay maalin wanaagsan dadka ku xiran YouTube channel-kan markana wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa labada buundo ee degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari waxaa goordhow ciidamada ilaalada deegaanka ay toogasho ku dileen wiil dhalinyaro ah oo kamid ah wadayaasha gaadiidka loo yaqaan mooto bajaaj wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayeen in meedka wiilka dhintay Allah u naxariistay wali halkaas yaalo waxaana socda banaanbax ay dhigayaan wadayaasha mooto bajaajta muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada mootada ku shaqeysta waxay ka cabanayeen wadooyinkii uu xiran meelo qaar oo dhagxaan lagu gooyay iyo dawladda hoose oo maalin walba ka doonaysa lacag canshuur iyo bil kasta waxay dhalinyaradu sheegayeen in aysan haysan wado ay maraan lacagtiina looga baahan yahay ma jirto ilaa hadda wax war oo ka soo baxay hay'adaha ammaanka laakiin magaalada Muqdisho waxay martigelinaysaa dhiigga dadka shacabka ah dhalinyarada mooto bajaajtu waa kuwa ugu badan oo dilalka kala kulma ciidamada amniga iyo kuwa canshuuraha ee dawladda hoose iyo booliiskaba wax warar ay ku soo kordha halkan ay kala socon doontaan